war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu cadeeyay in ilaa 49 xubnood oo ka tirsanaa khawaarijta Al-Shabaab lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay howlgal qorsheysan iyo duqeymo ciidanka gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen deegaanka Buula Madiino oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose howlgalkaasi oo ahaa mid bartilmaameed ah ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyay waxaana lagu burburiyay dhammaan gaadiidkii dagaalka iyo saanadii hubka oo ay wateen khawaarijta la beegsaday ee Al-Shabaab kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab ee lagu laayay deegaanka Buula Madiino ayaa waxay isku urursanayeen dhagaro gaar ah oo ay ku dhibaateyn lahaayeen shacabka Soomaaliyeed laakiin waxaa fashiliyay oo dhabarka ka jabiyay ciidanka sirdoonka iyo xoogga dalka dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo maanta ka qayb ah dagaalka khawaarijta looga xoreynayo dalka oo dhan isla markaana garab taagan ciidamada qalabka sida ee dalka howlgalkani ka dhacay deegaanka Buula Madiino ee gobolka Shabeellada Hoose laguna laayay khawaarijta Al-Shabaab waxa uu dhacay Arbacadii xalay ee 22 November